kuwan waa qaar ka mid ah qalabka loo adeegsado dhismaha wadooyinka cagafyada iyo gaadiidka kale iskarooyinka ah ee dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa aydi muuqanaya calaamada dawladda hoose ee daha cagaftaas ku taala salahan iyo baabuurta kale GT-da ah oo dawladda hoose iyaguna ah halkan yaala iyo qaar kale oo laga yaabo inay dawladdu u leedahay ay isugu jiraan gaadiidkan qaar kalena waan soo dhaafnay oo dawladda hoose ay lahayd marka waxaan ognahay wadadan aynu taaganahay marka inay tahay wadadii Berbera iyo Hargeysa isku xidhaysay oo ay dhisayso shirkadda DB World Berbera Corridor oo isku xidhi doonto Berbera iyo Wajaale barnaamijkaas iyo mashruucaasi oo socday oo la ognahay inay shirkadda dhisaysa wadada ay mashaariic hoose ay ku siinaysay gaadiidleyda cagafyada iyo iskarooyinka leh iyo qalabka lagu dhiso wadooyinka leh mashaariic ay ku siinaysay ayaa waxa haddana iyaguna qayb ka ah baabuur ay leedahay dawladii oo ay ka mid yihiin qaar ay leedahay dawladda hoose ee Hargeysa waxaan ognahay in wadooyinka Hargeysa ay aad u dayacan yihiin oo ay godad waaweyn iyo xurfada ka qodmeen qaarna qalabkii lagu dhisi lahaa la leeyahay oo ay saa darteed wadooyinka u taagan yihiin haddaba shaqo kalena ay ka hayaan halkan aan joognaa waa burcadii yareyd marka arrintaas ay dad badan isweydiinayaan oo ay maaragtay iyadoo aanu isku day doono inaanu wax ka weydiino duqa caasimadda laftiisa sidee ku dhacday arrintaas hadal de iska bilowda hadalkaaga adoo ku sii socda sida ku muuqata gaadiidka waa gaadiidka dawladda hoose oo si gaar ah loogu xoogsanayo aqoon gaarana u dhacdo maayo hadday wax kugu filan waa gaadiidka dawladda hoose oo laga kireeyey shirkadda dhisaysa waddada Berbera Corridor ee isku xidhi doonta Berbera iyo Wajaale caddeynteedina waa gaadiidka dawladda hoose ee Hargeysa oo arkaysaan oo aan caddeyn kale u baahnayn waxaad arkaysaan waa dawladdii hoose ee Hargeysa oo gobolka GT-dan waa ka tan waa wadadii Berbera Corridor ee DB World ay dhisaysa waxa kale oo xusid mudan in gaadiidka dawladda hoose magaalada Hargeysa ee wax dhisi lahaa ee wadooyinka dhisi lahaa ay halkan tuban yihiin iyada oo wadada Siinay laamida ah aan ognahay in carradii la soo dhigay walina aan la dhisin waxaana la ii sheegay in qalabkii dhisi lahaa la waayay oo ay yihiin kuwa halkan taagan ee ka shaqeynaya wadada oo qalabkii dawladda hoose taas ayaa iyaduna arrin xusid mudan ah